boqorka waddankan Brunei waxa lagu magacaabaa Suldaan Xasan Bolkiah. kursigiisa qaaska ah waa dahab. qasriga madaxtooyada dahab ayaa lagu qurxiyay ilaa masaajidda iyo goobaha ugu muhiimsan dalkan. waddankan yar ee qaniga ah waxa uu leeyahay gobol yar oo Soomaaliya ka mid ah. waa dal dadkiisu aysan maalin qadin. qofka ugu gaajaysan waxa uu la mid yahay midkeena ugu hodansan. waxa ku nool qowmiyado kala duwan oo haysta diimo kala duwan, balse waxay ku heshiiyeen inay isku maamulaan kitaabka Quraanka Kariimka iyo diinteena suuban ee Islaamka. sheekadan ayaan ku eegi doonaa waddankan qaniga ah, sirta ka dambeysa iyo cashir aynu ka baran karno. Brunei waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah wadamada ugu hodansan dunida. waa dalkan ku yaala koonfur bari ee qaaradda Aasiya. waddan qofka ugu gaajaysan uu la mid yahay midkeena ugu hodansan. waxaa sidoo kale lagu tilmaamaa kan ugu yar wadamada qaniga ah. waxuuna la egyahay gobolka Awdal ee Soomaaliya oo ka mid ah gobollada ugu yar ee waddankeenan. dadka u dhashay waddankan waa maalqabeeno ka caagan shaqada. dhawaad 500 oo kun oo qof ayaa ku nool dalkan oo dhan. waa 500,000 ama in ka yar 1 milyan. 17% oo ka mid ah dadkaasi waa kuwo u soo shaqo tagay dalkan oo ka yimid dalalka kale ee caalamka. arrinta ugu muhiimsan waxay tahay waddankan dadka ku nool waxay ku heshiiyeen in diinta Islaamka lagu xukumo dalkan yar ee qaniga ah. sanadkii 2013 ayaa lagu dhawaaqay in dastuurka dalkan uu yahay kitaabka Quraanka Kariimka. sidaa oo ay tahay waddankan dadka ku nool waxay isugu jiraan dadyo aaminsan diimo kala duwan sida Muslim, Christian, Buddhism iyo Hinduism, inkastoo inta ugu badan ay muslimiin yihiin. laakiin waxay ahayd go'aan ay aad u soo dhaweeyeen dadka ku nool dalkan markii lagu dhawaaqay in diinta Islaamka lagu xukumi doono sanadii 2013. tan iyo xilligaasi waxaa kor u sii kacayay dhaqaalaha dalkan ilaa heer maanta lagu tilmaamo waddanka afraad ee ugu qanisan caalamka. Brunei oo sidoo kale loo yaqaan Brunei Darussalam waa boqortooyo uu hogaamiyo ninkan oo lagu magacaabo Suldaan Xasan Bolkiah. boqorka dalkan waa ninka ugu hantida badan, waxa uu haystaa lacag 30 bilyan oo dollar ka badan. waa nin aad u jecel dahabka, sidaas darteed qasrigiisa aadka u weyn waxa uu ku qurxiyay dahab. kursigiisa uu ku fariisto waa dahab.